السلام عليكم أرضي سودوادا ومع محمود درسيgan ودرسيgan 15aad حكم دي 10 امتحانها ay ku sabsanaa luqada Ingiriiska aynu ku soo post gareyn jirnay platformyada uu leeyahay cilmi academy maanta waxaanu rabnaa inaan barano 12 kaas ficil ee meesha inoo saaran waa 12 verbs oo dadka inta badan ku wareeraan qaarkood micnaha way isu dhow yihiin balse qaar kalena waxay isku yihiin balid aan dhahno opposite midda koowaad waa bring your take bring waa keenitaan sale bring that chair over here kursigaas xaggan keen you are bringing the chair kursigaas soo qaadaysa waad keenaysaa waa bringing keenitaan take waa opposite ka bring oo ah qaaditaan you are taking the chair kursiga ayaad qaadaysaa please take this chair over there kursigan qaad xaggaagii bring waa keenitaan take waa qaaditaan okay midda labaad waa come iyo go come waa imaansho qofkii uu imaanaya come here halkan kaalay when are you coming goormeed imaanaysa he came yesterday shalay buu yimid go iyadana waa lidka come oo ah bax go to the mosque masaajidka aad go to the hospital isbitaalka aad go to the school isbitaalka aad when are you going to Nairobi goormeed Nairobi aadaysa marka come waa imaansho go na waa bixid labada iyagana lid ay isku yihiin mada saddexaad remember your remind remember waa wax markii aad xasuusnaanaysid please remember to call me afternoon waxaad xasuustaa inaad soo wacdid galabadii please remember to call Ahmed waxaad xasuustaa inaad wacdid Ahmed remind waa xasuusin adiga wax lagu xasuusinaya okay tusaale waxaad ii rabtaa niyo isa xasuusi waan ku soo wici galabta yani waxay soo xasuusaa inaan ku soo waco galabta please remind me to call you afternoon waxay soo xasuusisaa inaan ku soo waco galabadi mid afraad waa hear your listen labadan waa isku micno laakiin waxay ku kala duwan tahay midna qofka si active ah ayuu u sameeynaya oo uu dhageysanayaa midna qofka soo iska fadhiyo holiis iska wata ayuu maqlayaa hear waa maqal okay listen waa dhageysi hear Soomaaliga isku yihiin laakiin luqada Ingiriiska way kala yihiin tusaale did you hear that song maad maqashay heesta umaada qasdinin waad maqashay waa wax tusaale amal adigoo howlaha iska wato aad maqasho ama I heard them talking over you waxaa maqlay iyagoo adiga ka hadlayo here waa maqal listen waa actively you are doing the action actively tusaalaha amal casharkan baa hor fadhida waxa waa dhageysanaysaa si active ah ayaad u dhageysanaysaa una dhuuxaysaa waxa la yiraahdaa listening you are listening the lesson okay lend iyo borrow labadan waa isku micno laakiin waxay ku kala duwan yihiin meesha aad adiga ka taagan tahay lend waa qofka adiga ayaa deyminaysid borrow adiga ah kan wax soo deensanayo tusaale can I borrow your pen qalinkaada ma ka deensan karaya ama adiga caawin karaysaa waay adiga wax lagu caawina wax lagu deyminaa can I borrow your book buugaada ma qaadan karaya can you lend me your book adiga buugaada ma deymin karaysaa marka aniga tusaale amal Maxmuud halkan fadhiyo lend waa marka aan qofka aan wax siinayo sankii ayaan ku siinayaa I'm lending you my pen borrow aniga ayaa qalinkaada adiga ka soo qaadanayo ka soo deensanaya ama tusaale lacagteedii baa aniga ku siinaya markii borrow ay tahayna ayaa ka soo deensanaya mar walba meesha aad adiga ka taagan tahay ku xiran tahay midda lixaad labadan aad bay u kala duwan yihiin spend waa beeldarayn wasted iyadana waa khasaarin I have spent a lot of money on my car lacag far badan ayaan ku bixiyay gaarigay spent waxay ahaan kartaa wixii aad bixisay laakiin waxay ahaan kartaa wax faa'iido kugu jirto iyo wax khasaaro kugu jirto labadaba I spent a lot of money on my car because I love cars gaarigay lacag badan baan ku beeldarayay because waan jecelahay wasted iyadana waa khasaarin you are wasting money lacagta waa khasaarinaysaa okay why are you wasting the money why are you wasting all this money over that shitty car sorry negative language in isticmaalo why are you wasting all that money on this bad car maxaa waxaanu lacag ugu beeldareynaysaa gaariga xun marka spend iyo wasted isku dhow yihiin spending wax markii lacag aad ku bixinaysid ama aad qarash gareynaysid waste iyadana waa markaa khasaarinaysid okay casharkan inta ayuu ku eegahay waxaan rajeynayaa wax badan ka fahantay thank you so much have a good day and God bless you